aniga waxa aaminsanahay in qofka xildhibaanka aan loogu darin wasiir because ninka xildhibaanka wuxuu ka tirsan yahay hay'adda mataqaanaa sharci dejinta ka tirsan yahay marka qofka xildhibaanka oo ka tirsan hay'adda sharci dejinta in mataqaanaa xukuumadda fulinta inuu ka tirsanaado ma ahan waayo xukuumadda cidda la xisaabtami lahayd waa baarlamaankii haddii xukuumad laga dhigo meeshii xisaabtankiya meesha ka baxaayo marka aniga waxaan leeyahay qof xildhibaan yaan loogu darin inuu wasiir noqdo ama wasiir ku-xigeen inuu noqdo kaliya xildhibaankiisu waa inuu ku ekaadaa sidii mataqaanaa hadhow si loo helo baarlamaan la xisaabtami kara xukuumad arrinta anigu aad baan fikriin uga soo horjeedaa laba hay-adood oo kala madax bannaan weeye hay'adda fulinta oo loogu talagalay inay hawlihii dawladda qabato iyo hay'addii la xisaabtami lahayd marka labadaa la isku daro ay isku milmaan runtii waxay noqonayaan haddee waxaan fulinna ahayn la xisaabtanna ahayn bay noqonayaan oo wixii way isdhex yaacayaan waana meelaha la yiraahdo musuqmaasuqu uu ka soo galaa dawladnimada nidaamka dawliga musuqmaasuqu meelo ka soo gala weeye arrintan aad baan uga soo horjeedaa waxaan oran lahaa dawladda ama sharci ha laga dhigo ama si kala loo maareeyo laakiin hal kala ilaaliyo xildhibaanadu inay noqdaan golihii xukuumadana noqdaan golihii la xisaabtanka oo baarlamaanka sharci dejintana iyaguna isla noqdaan dhibaatada hadda in haysata baan ka arkaynaa marka arrinta fikirkan aad baan uga soo horjeedaa waxaan leeyahay hal kala saara laba hay-adood oo kala madax bannaan weeye una baan mid waliba la xisaabtankeeda goonida inay yeelato waana mahadsantihiin magacaygu waa Cabdirasaaq ku nool dhalinyarada magaalada Muqdisho ka mid ah aad iyo aad u soo dhaweynaa su'aashiina dabcan magaalada Muqdisho iyo xaaladda ku sugantaa siyaasadeeda waa ognahay iyo xaaladda kala guurka lagu jiro kullay nin xildhibaan in oo si wasiirnimo loogu darana ma aha wax ila fiican ani ahaan sababtoo qofka xildhibaanka asiga ayaa laga doonaya xukuumadda in uu la xisaabtamo dadiswaay marka in ninka wasiirka nin madax banaan oo ahaado xildhibaankana oo ahaado qof madax banaan sidaas ayaa aan qabaa magacayga waxa la Cabdicasiis Saciid Buureeye waxaan u arkaa xildhibaan loogu daray wasiir ama waxa weeye xilal kale waxaan u arkaa inay khalad tahay sababtoo waxa weeye qofkii wuxuu noqonayaa qof aan la xisaabtan lahayn dawladdii khalkhal ku gelinaya xukuumaddii oo waxa weeye aan la xisaabtan aysan yeelanayn waxay samaynaysaa qofkii asaga labadii meeloodba waxa weeye qoladii la rabay in la xisaabtamo iyo qoladii wax la xisaabtami lahaydba asaga isla noqonayo waxyaalaha kale oo mooshinada degdega keena waxa weeye qoladii wax weysay oo markaa baarlamaan ka mid oo weyday wasiirada waxay rabtaa inay mooshin keento si ay wasiiro kale oo cusub ay waxa weeye ayaguna u helaan marka wax nidaamka waafaqsan maaha wax wanaagsanna maaha waana waxyaalaha dawladaheenna hore baabi'iyey waxaan ku talinaynaa in dawladdaanuna ay ka digtoonaato inaan xildhibaan loogu darin wasiir iyo ama xil kale oo waxa weeye xukuumadda magacayga waa Zakariya Cabdiqaadir Cali horta taata da fikradda ka dhigto nin xildhibaan oo wasiirnimo lagu daro horta aan khalad u arkaa fikradahanteeda waayo ninkan oo xildhibaanka hadii oo wasiirnimo lagu daro hal xisaabtama ninkan shaqadiisa oo bagay soo xildhibaan ninkii wasiirka dalka wax walba ka dhac kar ninka xisaabtami lahay hada wasiirnimo daro il xisaabtamo cad waay wixii waa dalka sameysanayo aniga caqabad weyn aan arkaa sababtu tahay waxa weeye ummadda dhammaada horta baagamuuda marka dhinac laga fiiriyo bulshadii dhanaba wada baagamuuda kan qof leeyahay laba shaqo lagu siinaya waa caqabada koobaad caqabada labaad in qofkii la xisaabtami lahaa oo isla isagii yahay isla xisaabtan la'aana ka imaanayso